Atariisho caan ah oo laga helay cudurka kansarka. Soo dhawow daawade mar kale, waa anigoo ah Maryan Adan Xaaji. Nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. Halkan aad naga dawanayso waa Deeqsame. Mahima Chowdhury oo atariisho ka ahayd filimo badan sida Bardes, Daag, Sahar, Dadkan, Biyar Koy Khelnahin, Saya, Dilhay Tumahara, Sameer, Gumnaam, Bakban iyo qaar kaloo badan ayaa Khamiistii la shaaciyey in ay la xanuunsanayso cudurka kansarka. Rug-cadaaga Bollywoodka Anupam Kher, oo ay Soomaalidu u yaqaanaan Awbaska, ayaa ku dhawaaqay warka ku saabsan xanuunka Mahima, isagoo baraha bulshada soo dhigay muuqaal ay kula jirto atariishada caanka ah. Mahima ayaa muuqaalka gudihiisa ku tiri, wax calaamado ah ma aanan qabin. Sanad walba waxaan tegi jiray dhakhtarka si aan baaritaanada joogtada ah u maro. Xilligan waxaan helay talo ku saabsan in aan baaritaan isku sameeyo. Isla markii aan maqlay taladaas, waxaan u tegay dhakhtarka anigoo aysan cid kale ila soconin. Dhakhaatiirta ayaa tijaabooyin iga qaaday, waxayna ogaadeen in aan qabo kansarka nooca naasaha. Waxyaabaha kale ee Mahima ku tiri muuqaalka waxaa ka mid ahaa: qof walba waxa uu igu dhahayay waa farxad in la ogaaday wakhti hore, maxaad u ooyeysaa? Balse waxaa xaqiiqo ah in magaca kansar qofkii maqla uu ka argagaxayo. Taas ayay ahayd sababta aanan arrintan ula wadaagin xitaa waalidiintayda. Waxaan la noolahay waalidiintayda. Hooyaday waxaan u sheegay inaan nabar ku leeyahay naaska, sidaas awgeedna aan u soo booqan waayey 10 maalmood ee la soo dhaafay. Isla markiiba waxaa sare u kacay dhiig karkeeda. Waxaa khasab noqotay in isbitaalka loola cararo. Maalintii Khamiis ah ayuu jilaaga Awbaska shaaca ka qaaday in Mahima ay la ildaran tahay kansarka naasaha. Taageerayaashiisa ku xiran boggiisa Instagram-ka ayuu la wadaagay muuqaal ay kula jirto atariishada. Muuqaalka uu soo bandhigay ayuu ku qoray in Mahima ay tahay halyey, ayna iyadu raalli ka ahayd in la shaaciyo warka ku saabsan xanuunkeeda. Mahima ayaa muuqaalka gudihiisa ku sheegtay in Awbaska uu la soo xiriiray si ay qayb uga noqoto filimkiisa, balse markaas ay iyadu ku jirtay isbitaal lagu daweynayay. Waxay sheegtay in muddooyinkii la soo dhaafay ay si joogto ah u helaysay codsiyo ku saabsan inay ka soo muuqato filimo dhinaca internetka ah, balse ay aqbali weysay maadaama aysan timo lahayn. Timaha ayaa laga xiiray kadib markii ay u bilowdeen dawooyinka kansarka. Markii dambe waxay u muuqatay in ay qiirootay, waxayna sheegtay in ay Awbaska ka codsatay in ay filimkiisa la jisho iyadoo isticmaalaysa timo macmal ah. Qaar ka mid ah jilayaasha kale ee Bollywoodka ayaa muuqaalkaasi ka falceliyey, iyagoo muujiyey taageerada ay u hayaan Mahima. Genelia Souza oo ka mid ah jilayaashaas ayaa yidhi, mar walba waxaad tahay qof cajiib ah, ruux kastana uu ku tiirsanaan karo. Mahima oo 10 sano ku soo jirtay jilista filimada Hindiga ah, ayaa sanadkii 2006 la aqal gashay Bobby Mukherjee oo ah injineerka naqshadaha guryaha. Hase yeeshee lamaanahan oo isu dhalay hal gabar ayaa kala tegay sanadkii 2013. Waraysi ay sanadkii la soo dhaafay ee 2021 siisay Pinkfila ayay ku sheegtay in ay jilista filimada iska joojisay si ay u koriso gabadheeda. Markii ugu dambaysay ee Mahima lagu arko shaashadaha filimada waxay ahayd sanadkii 2016, xilligaas oo la daawaday filimkeeda Dark. Filimkaas waxaa laga matalay qisada dil dhab ah oo loo geystay Sheena Bora, oo ahayd gabadha maalqabeennada warbaahinta ee lagu kala magacaabo Indrani Mukherjee iyo Peter Mukherjee. Mid ka mid ah filimada ay Soomaalida sida aadka ah u xiiseeyaan ee Mahima soo jishay waa Dadkan, oo soo baxay sanadkii 2000. Filimkaas oo ay ka ahayd atariishada labaad waxaa kale oo la jilayay xiddigaha kale ah Akshay Kumar, Sunil Shetty iyo Shilpa Shetty. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena, fadlan nagu dhiirigeli lagtaada, channelkeenana ku soo biir si aan u helno saaxiibo adoo kale ah. Waadna ku mahadsan tahay
tixgelintada waa wax agtada ka fudud anagana wax weyn noo taraysa.